الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدنيال إيمرو waxaan ugu horreysanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore oo ah tababaray nolosha siyaasadeed ee soo tababaray muddo 5 sannadood Axmed Maxamed Siyaad madaxweynihii ka horreeyay Daahir Riyaale Kaahin oo ahaa madaxweynihii bilaabay inuu doorashada bilaabo kuna magac iyo maamuus leh inuu xilka sii geliyo oo doorasho awgeeyo waxaan mahadnaqayaa wararka ka hamreynaya golihii wasiirada ee xukuumadda Axmed Maxamuud Silaayo oo dalka 5 sannadood hawlo laxaad leh oo horumar ka qabtay suuqada geliyay inay doorashadu si nabad ah u dhacdo waxaan ka maraynayaa madaxweynayaashii hoggaamiyadii hore oo saaxiibaday ah oo ugu horreysiinayo Mujaahid Xasan Ciise Jaamac oo aanu isku waqti iyo da ahayn maantana aad ugu faraxsanahay inuu ka soo qayb galay madaxweyne hore Cabdiraxmaan Cali mujaahidkii weynaa oo isaguna hore dalka ugu soo madaxweyne ku-xigeen iyo Sheekh Axmed Yuusuf Yaasiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka waxaan kaloo halkan ku soo dhaweynayaa aad ugu mahadnaqaynaa golaha guurtida guddoomiyahooda oo oday mujaahid rugcadaa ah oo in badan dalka soo shaqeeyey guddoomiyaha golaha wakiilada baashe oo in badan soo hogaaminaya golaha wakiilada waxaan si gaar ah kaliya laaba u soo dhaweynayaa saaxiibkaygii ila tartamay ee ii haneeyey ee laba goor oo hore dalkan intuu ku tartamay haneeyey Faysal Cali Xuseen Faysal waxaan kaloo hambalyeelayaa meel jooga waan soo dhaweynayaa saaxiibkayga ila tartamay oo dalka dibadda kaga maqan mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ciilku oo isaguna ogolaaday natiijadii iyo xisbigiisana intaa kadib waxaan soo dhaweynayaa madaxda inoo timid ee dalalka jaarka ah iyo kuwa fogba waxaan ugu horreysiinayaa saaxiibadayda ama aan isku dhowanahay af iyo diin iyo dhaqanba ee jamhuuriyadda Jabuuti ee uu hogaaminayo saaxiibka Cali Xasan Bahdo waxaan soo dhaweynayaa madaxda ka timid Ethiopia dowladda federaalka Ethiopia dhammaantood oo si gaar ah u soo dhaweynayo dowladda deegaanka Soomaalida oo maafiya dhaqamada aan muslimahay oo hogaaminaya madaxweynaha ku-xigeenku iyo dowladda federaalka Ethiopia guud ahaanba wasiirka gaadiidka Axmed Shide oo naga mahadnaqaynaa saaxiibtinimada dhaxaysa waxaan kaloo aad soo dhaweynayaa dalka Kenya gabadha uu hogaaminayso wafdiga xildhibaanada ah oo ku hambalyeeyo inay tahay gabadhii koowaad Safiya ee noqota xildhibaan dalka Kenya Soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta dalalkii Soomaaliyeed qaybtii Jabuuti qaybtii Ethiopia qaybtii Kenya Somaliland waxay naga dhiman maanta qaybtii Muqdisho oo ay ahayd iyaguna iyagoo qaranka Somaliland ixtiraafsan ay ka soo qayb galaan aan filayaa in dhawaan ka soo qayb gali doonaan oo aan iskaasho doono oo aanu dad iyo dhaqanba wadaagno laakiin ay arrintayadu suurtoobayday inay mid noqoto duruufii dhacay awgeed ee tana nin waliba dowladdiisii iyo qarankiisii gaal dhistay iyagana waa u dacaynaa dhibaatada ka baxaan iyagana waxaan ka rajaynaa inay u hambaliyaan wixii talaba horumaray aanu sameynay intaa kabacdi waxaan si kalgacal iyo xishmad loo soo dhaweynayaa wufuud ay nooga timid dalalka Yurub dowladaha EU-da ama Yurubta midowday oo ay hogaaminayso guddoomiyaha ambassadorka EU-da ee fadhiya Kenya oo saaxiib dhow la ah Somaliland iyadana waa soo dhaweynaynaa iyo ambassadorka la socdaba waan uga mahadnaqaynaa taageerada inooga waxaa kaloo si gaar ah soo dhaweynayaa oo muddo karnimo safiirka UK oo halkan 3 jeer loogu yimid baraha gudaheed
ونوم وشيء إنه نجحيه هو كله سواء ونوم كذلك يبقى الآخر عينه ما توقع كم تشوف تغيير سوماليلاند سكلي الله أنا مسؤول دولنا وما أنا دولة اليوكي ده هو بيسي هذا كذا واقع ضمان متكك سوماليلاند إيوه فلحظة خمس النوري من دولة إثيوبيا يصوم جيبوتي وآديات برسولوية سكارة وحنسولوية وقاس كجودة برمي قروية عيسى مصطفى وما تقول رئيسوا عمرية وتلفون كنا صاحبي حضر مرتقات في وقت بيسي سود ومصطفى قالت كباشا يتهالي أبو قرا سوال كتير وحبالي تهلا قال الله أنت كانت تفراد وأقول على ورام فرقين سودو أنت مركان نافذ سودو وأنت يا محمدة ما أنت أنا بقول ملاش بلنا أنت على كورتاجن وحن دريمية رئيسك يميسانك إلى الله حلك الليل عليه سومالنا حلك الليل عليه سومالنا رئيسك أوليه وحن خصوصا يا وحنا صبري كوي ونتنفت ظهري كوي كنا وعمي كوي مالك ظهري كوي أقوى يكوى كوي رمي ما تنو يقول ذلك شرفها يا ماموسا أنا ما تقول شو لنا مو قدرنا يا وادي جدت في سوماليلاند وصوه تاريخها مركب لنا سوماليلاند إلى دراويش إلى أسن سوماليلاند وحيلها تاريخ ده ومر والبقورين وضغطوا هدو استعماري هاي يا هدو عدو سود ولا هاي يا هدو مامور حق أو قبضة بيها تاريخ واحد يقول السوماليلاند إلى لا تاريخ الوهريسي السمي سالوا ضيالتها استعمار كعدايا في السودوري دراويشتي سيد محمد عبد الله حسن واحد قارن تاريخ الكون عند قرى أفريقيا ديالات مدقية وحسين وهرتي وحكون لي تاريخ لي أهي شيخ بشير هي علماء كذا قالت الجميسية تشكو لي نفط الظهور وحكون سوحي لي هو السياسة كسر بلاد قري حسبي لي SNL LUF USB يدرجه كامله وما تبلغ من الموسيقى واحد كسر حين SNL واحد دوري هكذا كعب يدد بدن وتاريخنا أما وحيد شيء سكر ذو فهمسن ولا ريال سوماليلاند سبيل SNL سوماليلاند مديالمين تاريخ كم عنك جاهية نحرس الدرهم الصومالي ودنا أفريقي مركي أملوا الديالمين إحنا إسراء خلاف كعبوي والله يا ما إنك تشوف الصوم إنك قاعد عسيه أسرم كل قاعد كاجي ويرسا تبي تنو دافعي وحرم لها كي أسرم كدافعي صومالي أردن تبعتني كواهي ترسي أبوي إنك بور ما تشوفي إرد قالبي أسرم وهو هيسن عيب وقبي أسرم على وقت حيسي وحي هاي بلايا إياه فوق وكذا العيي ترسكي سياد بره وهاي أسرم واحد بصدور سبطان كذا إياه روكانا يا عروسها ديال وكانا يسمى روحها من لمضة أسرا ودافع يدد سوماليلاند هذا يسمى واقع يلعب فيه شركي بورمه واحد كويس والله مقبل أهل برامجك إن سوماليلاند يضع أنا عيب على سدي إلا ولا حموري مصيرها عليه سلامتي كي كذا قال لي يلا أسعار يكي بورمه كذا قال لي يكي أسرا إلى ينتهوا يسحقوا إياه كلامه إياه شرافيين وإذا ما تنسوا ولا دافعين أو كود التي إياه كود روعة إياه كود ما تشوفه الكل قدرنا أحد قنوات كأس سوماليلاند من سمم وأي وليه وأرم الضم على يحمى الله القتال هل أسوي سوماليلاند كان اليوم لا بنتي كده بسبب أنت على سوماليلاند إيش رها أي ورمي gurmadkii uu soo galay inay Soomaaliland midowdo ee siyaad barro ugu bareeray garaad Cabdulqani ee ku yimid balay gubadle ee halka ka soo intiibiyay waa kii nabadiisu ku dhamaatay burcod iyo gool waa tii lagu dhisay 97 dawladii laba markii labaad doortay Maxamed Xasan Gaab gurmadkii uu ka yimaaday sheekh halka quraanka lagu akhriyay Sheekh Abdullah Arjo
أيوة سعودان عبد الرحمن وعلي ومجاهد كوينا يا سلامة وكل لبض عيدا يسوق كاري دراء لبض كوب قادين إذا تكون هذه هل كان مقاس أي كان قادين يسقي يقول سعودي يا شيخ موسى قولات لهاي يا شيخ أبو بكر لهاي يا أنت رضا لهاي يا دماتهم مسوق المريح حتى قردوفون كده حلينا واتيا مسوق قبل نشكي بورمي وهل كان مسوق المدني إيوه في سياسة أي كسر المريسني وتامات شرف عارف بنوبي عارف هنا بنوبة شنو يعني بقى يكون سوق وحنا نبغى قاضي إن أنا تاريخ له الكون جميع السياق يسوع جميع عبد الرحمن محمد علي محمد حاتوران عيال ظاهر ريال كاري يا أحمد سيراج ما تقدم به وضالي سومالان قرننا من يدرس هذا أيام هاي دوما وإن شاء الله سيصير كبعني يوصل إنسان عندي الوضع تاني دوما تاسوا سنة سومالان كبحي أنت هو حرب بيه سومالان وحا أي صوم سيدا صور ستة أي كصوم بنوضي كل بتولي يشن وحا أي دورش صوم بشن أي تي ما تقول دبيسي صومالات كليجت باسا ميسي وحي نجع وجري وحير مويانه إله يو بحياش قرب بحياشو حاجة بيها يو عافمات كيو دولاديس كيو سكيورتي كيو تبدو دبيسي دورشنا لما أنت وقول كي بس بيت واحد بحياة سومالنا هذا العكاي هذا أقواتها هذا سلوغاشتها هذا غلطها وحن هذا ربنا قياه وإلهي كبر بريكو أمانة تاريخ كمبلا كنت يدور شوي كخرج وح أمان كمبلا وهير جريء وحضور مصاحري وأمان كريء علم القرآن كدول وإنه أمان يكرر مهمة وإن هذا أنت من ما تكافئ بالشارع القادم وأن خصوصنا ضرر قدرنا إلى إله وحنا شيء عارف إذا نبي له هاي فهو كافرين يعني وأم بانك ونعاونين وبانك أفريقيا نعاونين ودولها عربية نعاونين وقوى مسلمين عربية نعاونين دون شغل يدي هواية إلى هذه يوم الصوم بس تتصل والله Soomaaliya waxaan rabaa waxaan u sheegaynaa inay soo tashadaan oo wadada raacaan oo ka baxaan mutasalaanta dawladda sheegay iyaga hawlahooda siyaasiga u qabanay inta wax ka midaya araabta Soomaaliya iyadoo inta soo qabatay iyadoo waxa soo guura gaaray haddana waxay hor yaalaan maanta dhibaatooyin u baahan inaan wada jir ku maarayno oo aan xisbi gaarina maareeyay nidakeliya aan ku maareeyay waxa kamid ah cimilada isbedeshay ee abaarta keen ku rabaa xoolo yaraade waxa kamid ah sicir bararka iyo lacagta noo soo dhacday waxa kamid ah babiilka oo aad moodo inuu qaranki la dagaalamayo oo ka soo horjeeda oo ay wada socon karaan waxa kamid ah shaqo la'aanta hawlahaas oo waxaan u baaray karnaa badal waxaan ku maaray karnaa wadash haddii aynu soo qaadno dhibaatooyinka wuxuu weyn oo ku wada qaalaha oo ay ka mid tahay lacagteena hoos u dhacaysa oo keenaysa saboolnimo iyo dhalinyarada shaqada mustaqbalkeena ah waxaynu ku maaray karnaa walaalayaal innaga oo marka hore qalbigiisa aamina oo dalkeena wada qana oo ka baxana qabiilka iyo deegaanka iyo tuulada waxaanu kaga bixi karnaa iyada oo aynu ganacsatada dadka hal abuur kale ee shirkadaha waaweyn inoo sameeyay iyaga oo caalamka inay ictiraafsanayn oo aan day ka qaadan baanka oo aan la xilsanayn baanka sharciyad ay aysan furaan lahayn ragga iyo hablaha inoo sameeyay dhaqaalaha inta la iyo horumarka iyo qaran iyo xukuumadda markay labadoodu iskaashadaan wada shaqeeyaan ee haddii isu dhigayno waxaanu qaadi karaa tallaabo weyn oo aynu shaqalaanta kaga baxno oo lacagteena kor ugu qaadno oo aynu dhaqaaleena ku dhisno markaasaa caalamku wixii caawinaya inoo iman doona waayo laga heshiisa aynu akhlataan taas waxay u baahan tahay fikriya hawl waana qorshaha dowladda aan ku soo haddana ay ku dhaqaamayso waxaynu kaga bixi karnaa fadliga iyada oo sidii sheekh cabdilaahi ka sheegay aynu muruqeena dhulkeena aamino lama arag caalam dad oo wax beeran maayo haddii aan cuntada la beerana waa garow iyo arbakhiyo oo ma cunno oo waxaan doonaynaa cunto anagoo anaan beeran
oo laga yaabo caafimaadkeeda iyo tayada cuntana aan la garanayn oo ay ka muuqato maanta cuntaxooda dalka taalla ee laynoo soo waariyaa dhallinyaradayna koraysa sidoo kale haddii aynu markaa dhulkeenna beeranooda cunteeda la soo baxno oo xooggeeda aynu leenahay walaalayaal gaatada in badan uu ka baxdaniya sicir barka iyo shaqalaanta dalkeennu maanta wuxuu u baahan yahay waa 450 kun oo tan oo cuntaa oo ah midho waxaynu haysanaa ilahayna siiye xoolo oo brotiinka maanta adduunka o dhan laga laayahay waxa ilahayna siiye kalluun oo inaamidala soo bixi haddana carruurteena maanta nafaqadara ka noqota iyo inaga waa tamar la-aan waxaan u baahanaa inaynu xoogga u jeedsano haddii gobol waliba 15 kilomitr kaliya beero bal gobolkana sanaaga intuu leeyahay bal inta biyo martaaya gobolka sanaag haddaynu 15 kilomitr kaliya beero walale oo aynu u jeedsano falay ka baxnaan gabaruqale dalkeena cutufna u weynaa maanta waxaa nagu ceeba inaynu ka soo iibsanno dalalka jaarkeenna tamaandhada wax kale la iska daayo inagoo dalka intaa leeg iyo biya intaa leegana dabcan waa rugii uga yaraaday laakiin waynaynu helnaa hab casri ah oo xoolaheenna aynu hadda u dhaqno xoolihii guuraya ee soconayay ma soconayso abaaraha dhacay iyo cimilada darteed inuu helo dhulkii daaqjiro wareegeysto xoolaha in la dejiyo oo calaf loo abuuraa wax weyn ma aha waxaynu haysanaa dhakhaatiir xoolaad oo fara badan oo aqoon leh laakiin waa laga dhegaystaa oo dadma raaca maalqabeenku waayu maalgeliyaa xoolahanu oo ah waxa dalkayna ku haboon inahaynaysa iyo kalluumaysiga ku dheeraan maayo hawlaha inoo yaalla oo aan doonayo inaan wadajirkooda galo haddaynaan wadajirkooda gelinna saas kala baahnaanayna farqule fool ma dhaqdo dadkuna waxdadku roy waxaan u gudbayaa doorashada iyo xarafteedii waxaan diyaar u ahay oo talaabooyinkeeda inaan qaaday haddana aan wada waxaa lii wixii xaraaf ka dhacay doorashadii inaan dugsiyo oo weliba aniga laygu jiibsado oo xisbiga kulmiya lagu jiibsado oo walaaladayada wax tirsanaya aan qaboojino iyagana waxaa laga rabaa walaaladayda wax tirsanaya inay gar qaataan inay gobleed soo fadhiistaan waxbaan kaa tirsanaya kuwa soo fadhiisan maayo waxbaan kaa tirsanaya gar qaadan maayo ee waa dhantii madax dhaqameed iyo odayaaladiida olmayna qabataan diyaar baanu u nahay inaanu goob walba u tagno waa u tagnay xaruntoodaan ugu tagnay waanu wada shaqay madax dhaqameedkooda waanu heshiinay wixii ay u amreen waan qaatay waana la arki doonaa aniga oo weliba ogol dadkii foodka badan ee bulsha keenay inaan ku jiibsado iyaguna ay dul qaataan waxaan ka sugaynaa walaalada iyaguna iga qaataan oo nabadda ku yimaadaan waxaan loo gudbayaa waxaan naga sugaya dowlad cusubana soo dhisno dowladda waxaan doonayaa dhowr badan ka taabto mabaadida ay ku shaqayn doonto horta xilku ma aha marka laysu magacaabo madaxweyne ama wasiir meel qofku ku baraaro oo ka taajiro oo dadkiisu qusan noqon mayso dowladdaanasoo waxaan baladii ku qaadayaa qof kasta oo xil qabta oo golaha wasiirada ama hay-adaha dowladda ka mid ah hawsha loo dhibay lagula xisaabtamo saacad iyo maal wixii loo dhibay iyo haddii u qataan waxaan weliba la qaadanaa inta qof bini aadmi badan kari kara inaanu ku dadaalna sinaan iyo cadaalad oo dadka iyo dalkaba aan u sinaano sidii halkan kaga dardaarmay waxay noqon doontaa inay noqoto dowladda dhisoora iyo shaqaalaheedu in dadku xilka qaranka ay ku kala sarreyn karaan madaxweyne wasiir agaasime janan askar kabtan inay saa u kala sarreeyaan laakiin sharciga loo sima yahay meel kasoo adjoogto waxaan taa uga gudbayaa somalilan maanta waxaa taala hawl badan oo si hore aynu uga dhex jiraanu kaga gudubno waxyaalaha hor yaalla beesha caalamka waa mahadnaqaynaa wixii hore aynu soo taray iyo waxaynu ugu caawiyey waxaan se u sheegaynaa haddaanu somalilan nahay inaanaan ku faraxsanayn inala caawiyo ee hamigayaga iyo fikradaydo ay ahayd inaanu dhow wax caawino haddaanu somalilan nahay waxaanu arkaynaa dadkii aanu isku midka ahayn ee aanu ama kaba itaankoonay ama kaba aqoon badayn 1960 markaanu gobanimada qaadanay
أي كما نسكو سيستم كهاي أنا لما تيجي حالي سيستم كي دولة إنجليزية بريجا حوك ولا تقولون دولة المسجد أي كما تي كينيا أي كما تي تنزانيا أي كما تي يوغندا أي كما تي سنغافورة أي كما تي ماليزيا أي كما تي كوريا ساوث كوريا isku itaal bay wahay mid bixi kaadana mana ka muuqday ama ka system dawladdu wanaagsan maanta dhamaantood way caawiyaan waxaanay loo arkaan dad aan waxba qabsan karin waxaan leeyahay dhibaatadaas waxay naga soo gaadhay midnimadii aan raacnay koonfurta oo taraxmada ay khalqan galay waxaan badagyahay dawladda labaatan ka sano anaga la ictiraafin dawladeeda iyagana ilaahay ka saaray masuuliyadu ku jirtay sidaan u kala duwanahay ayaan u kala duwanay markaa waxaan qabaa hadday maantii Soomaaliland kaliya dhaqaaq lahayd maanta inay ka mid ahayd dawladda deeqta bixiya ee tacliinta bixiya ee iyaga lama jeerto inaan halkaa joogno muwaadiniinta Soomaaliland waxaan ka doonayaa inay tawfiqaan inaanay oranin markay sheekaysanayaan ciid naga wanaagsan waxaan wax ka dhacayeen dalka waxay nahay ka saddexaad ugu faqiirsan in Soomaaliland tahay waxay nagu hoosayeen Mali iyo Congo kaliya ma aha in isku jiraan ismaadino waa inuu la Kuuriya ka gaadhay waa inuu la Malaysia ka gaadhay waa inuu la Singapore naga liitay oo maalintii Malaysia ka baxday lalahaan naga bax kuma qaad karee halka ay marayso inaynu kuwa maalinta la mid ah ama gooreen baa sheegaya halka inaynu gaadho lixdii sano ee lumay inaynu ka doosino waynu baanahay haddaynu Soomaaliland nahay uma baahnaynu qaybo shaqeeyo taasaan ku hogaaminaa haddii ilaahay yaabo shan sano soo socda oo aan dib la qaadano marka dalka in caawiya ama deeqaad bixin waxaan leeyahay kuwa farsamayaan inaan qaadano deeq sababo ninka Ingiriiska ah dalka ugu soo horeeyay oo Richard Burton wuxuu naga qoray markuu saac ka soo waxa uu ku socday dalkaas waa dalka wixii bakshiishii wala boqol sano goorma ku gudbinaa Soomaaliland ah waxa muwaadiniinta ka doonaya inay taagaf karaan oo kor wax caawinaya iyo hay'adaha shaqatiga caalamku waxaan u sheegnaa waxaan qabsan buudax muuqda waxaan qabsano ayba waxaan ugu daray ee gacan maran ma soo fiirino waxa kale oo sheegaynaa ambassador ka fadhiya ee dawladda Yurub ka yimid iyo caalamka oo dhan hadaan Soomaaliland nahay budgetka iyaga yar ee aan cidina laga caawin waxaan ku ilaalinaa 780 kilomitir oo bad maanta adduunka waynu ognahay waxa ka socda dagaalada ka socda dhinac walba 780 kilomitir oo aan wada lahayn oo xeeba oo buuraleyda ah oo aad sarafta waa meel ugu sugan dadka sameeyay baartay fadqalooyinka ayaan ku ilaalinaa oo aan cidina laga caawinin oo xoog iyaga iyo dadka iyaga shicibka ay wada ilaaliyaan taasi ammaankeeda anaga fadhino waa kow waxaan ugu fadhiyaa dalka China ee Djibouti ka mid tahay ee Ethiopia ka mid tahay iyo Kenya ka mid tahay iyo caalamka oo dhan ilaa Mareykanka gaarsiin waxay ku fadhiyaan lacagta xoogta ku daafacano waxa la yiraahdo dalada caalamka fadhiya waxaan intaan leenahay waxaan ku bixinaa nabadgelyada budgetkayga xoogayga waxay ka go'an tahay tacliintayada waxay ka go'an tahay dhakhtarkayga waxay ka go'an tahay shidadkayga waxay ka go'an tahay horumarkayga caalamka waxaan xaq u leenahay waa abaalmariya oo naga caawin oo Soomaaliland aqoonsadaan waxa ay tahay ayaan caalamka xaq u leenahay waayo ana waxaan caalamka waxaan soo gabagabeeyaa aniga ma hadda inta soo qabashada waxaan u mahadnaqaynaa deeqayaashu wixii ay dhiseen ee hore noogu tooriyeen haddana weli waa u baahannaha waa dhismaynaa laakiin maaha baahi joogto ah oo gacanta soo bidoono insha allah bismillahi kariim inaan hore uga baxno waxaan u mahadnaqayaa madaxweynayaashii hore waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliland muwaadiniinta ah ee birlabta ah ee goobta ah ee dalkooda soo dhistay sida awoodayaashay u soo dhiseen iyaguna la socda waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha intijiga oo horeeyo كلية مسؤولية جهاز كلية وجهاز مصطفى يوم الخبر في السؤال لا منطق وأمر لما تقولون هذا وهم هذا علماء دينك وهم هذا يقولون أنا راسي أوراق صغيرة كارهان حرب بين كل كلية أدرس هذا وهم صغيرة لما تقول ما تأتين درجة جارك أو حمشينا درجة جارك أو حمشينا آدية أدنى ما تنسى ما طوال كثري مركي لا أركي جبوت وقت يتعلق صعوب
iyo jitiwaytaa ay ka socoto iyo axmed soo dowladda faraankaa gaarkaaya tana waxaan kornay maxamed xashaan kulan ayaan kaftanay wuxuu war maanta dowladda shacabka xoog weyna war waa hubna loo doro way arkayaan galbeedku waa kuwaa soo gudbaday gurmadkaayo waartabana waxaan gaarsiinaynaa ilaa iyo Soomaaliland xalka halka ugu baryaysa annagoo saa gacmaha isu haysanaa oo uu sii horgeli doono insha allah cali khaliif oo aan maanta professor cali khaliif oo aad iyo aad u maadaqayo halka fadhiyo haddii cali khaliifo asoo aan maanta ay karo magaray galbeedkana doortay waa sidee waxaan ballan ku qaadayaa galbeedka iyo jaarkoodiga wada socdayna walaaltinimo iyo nabad iyo taageero barigeeyaan waxaan aad iyo aad u maadaqayaa xulooyin أخوانكم وإلى أبنائكم وإلى أمانكم تبكي من هذا الوالد لما توا ما تأتي أبيات ما تأتي